بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Qayaad mar kale iyo ku soo dhawaada barnaamij cashirkeena imtixaanaha ahaa maanta waxaan kaga hadli doonaa hadii aabaha awoodda leh idmo TCP/IP-ga ayaan kaga hadli doonaa ama transitional control protocol/IP oo internet protocol isaguna u yaala ku soo dhawaada markaas mar labaad qaybteeni labaad ee imtixaanaha ahayd maanta waxaan kaga hadli doonaa hadii ilaahay dhaado bal barbardhig ayaan ku sameynaynaa u dhaxeeya TCP/IP-ga TCP/IP modelka iyo OSI modelka sida aad wada ogsoontiin hore ayaan u soo qaadanay waxa la yiraahdaa open system interconnection wuxuuna yahay madaragtay waa qaybtii hore ayaan ku soo qaadanay marka wuxuuna ka horeeyay oo ka soo saarid horeeyay TCP/IP-ga labada qaybood waxa horeeya OSI modelka ayaa horeeyay marka TCP/IP-ga waxa laga dheegay baa la oran karaa OSI modelka ayaa laga dheegay isagoo sawiraan halkan inoogu yaala bal waan soo laaban doonaa ama ba hadda aad arkaysaan OSI modelka waa todobadiisiiba halkan application key presentation key session key transport key iyo network iyo data link iyo physical key halka TCP/IP-ga ay ka tahay only application key saddexdan la soo ururiyay oo application laga dhigay application iyo presentation iyo session waxa la iskaga dhigay application transport key si baa loo daayay network-ina internet ayaa loo bedelay magaciisa laga bedelay data link-iga iyo physical layer-kiina waxa laga dhigay network access marka sidaas buu TCP/IP-ga afar layer ku yahay oo u dhiganta laakiin todobadii layer halka OSI modelku ay todobadii layer oo joog ay todobadii layer ay ka wada yihiin oo joogta xabad loo sheegay kan laakiin waa todobadii oo daboolan oo afar meeshii saddexdii ahayd hal xabad laga soo qaaday meeshii labada ahayd oo data link iyo physical ka ahaydna laba laga soo qaaday saas ayay marka hore ay midna afar u noqday midna todoba u noqday farqiga ugu horeeya ee u dhaxeeya horta waa kuwa inkasta oo ina farqi badan aanu u dhaxayn doonin hadii Ilaahay dhaahdo markaan hoos u daadegno laakiin hadda waxaan idin sheegayaa in OSI modelkuna todoba layer yahay TCP/IP-gana ay afar u soo gaabiyeen isagoo still shaqadii todoba ahaan aw ku qabanayo laakiin afar ayay u soo gaabiyeen marka TCP/IP-gana waxa la soo saaray kadib markii la soo saaray OSI modelka ayaa ka horeeyay TCP/IP-ga sida markaa ula socdo walaalayaal okay halkan bal fiiri bal hadaan soo koobo يعني مثلا like OSI internet network model يعني سيدي او اها اما او يهب OSI network model كو TCP/IP also has a network model TCP/IP guna kuleeyahay network model macnaha waxa laga wadaa todobada halkan ka yahay kan afar ayuu ka yahay marka TCP/IP-ga was on the path of development when the OSI standard was published and there was interaction between the designers of the OSI and the TCP/IP standards halka haddii aan soo gaabiyo waxa weeyaan markii la soo saaray OSI modelka oo shaqeeya ayaa la damcay in TCP/IP-ga la soo saaro marka TCP/IP-ga inta badan waxa la waxa soo saartay wasaaradda difaaca ma garanaysaa wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ee loo yaqaan DOD ama Department of Defense marka waxa lagu leeyahay wuxuuba ahaaba TCP/IP-gan waxa laga dheegay marka OSI modelka ayaa laga dheegay oo laga dheegay macnaha waxaan ka waraa OSI modelka ayaa laga abuuray oo laga shidaal qaatay oo intiisa badanna aw magaranaysa aw ka tirsan yahay tusaale ahaan sida wada ogsoontiina wax kale farqiga u dhaxeeyo weyn anima ba arkaa horta okay and there was interaction yani midalan interaction ayaa jiray labada designer yani xoog ayay magaranaysaa waxay sameynayeen almost isku mid ayuu ahaa the TCP model is not as same as OSI model yani TCP-gu la mid ma aha OSI model macnaha waxa laga wadaa uu ka leeyahay yahay baa laga wadaa oo wala soo gaagaabiyo OSI-gu is a 7 layered standard ahaan ma caadi ahaan waa todoba layer weey laakiin okay 7 layer waa todoba layer weey laakiin TCP/IP-gu is 4 layered standard waa afar layer weeyaan
marka san hore u soo nir afarta layer waxay qabtaan toddobadii layer shaqada ay qabtaan oo bay qabtaan waa la soo gaabiyay kaliya yani waa si loo kala yiraahdo kana waa TCP kana waxa weeyaan TCP/IP kana waa OSI model oo loo kala yiraahdo. The OSI model has been very influential, has been very important aad ayuu muhiim ugu ahaa in the growth يعني koritaanka and development iyo horumarinta of the TCP/IP in la soo saaro oo la hindiso waxaba asaas u ahaa saldhig u ahaa OSI reference modelka ayaa u ahaa asaas and that's why sida darteed much OSI terminology inta badan terminolojiyada is applied lagu isticmaalo to TCP/IP gu waxay ka timiday OSI modelka. The following figure kan soo socday compares wuxuu isgarab dhigayaa the TCP/IP and OSI network models yani waxa bal farqiga u dhaxeeyaba OSI ga iyo TCP/IP ga farqiga u dhaxeeya ayuu mesela sharaxaya asharadan soo socda afarta layer baan sharaxi doonaa hadii la hayra intan marka waa introduction aan idin sheegay as we can see sidaan arki karna from the above figure xaalka sare figureka sare oo ah kan Here, presentation and session layer are not there in the TCP/IP model. In TCP/IP model ga presentation layer iyo session layer miyaad ka arkaysaan? Maya weeye waxaan uga arkaynin waa la soo koobay oo la xabaa ayaa lagu soo koobay application baa laga soo qaatay. Okay, also note kaliya haddana wali waxaad ogaataa network access layer oo isagana aan arki doono mesela network access layer ku oo kan ah ma garatay isagana waxa loo soo gaabiyay labo because network access waxa la isku yiri physical layer iyo ma garanaysa oo layer 1 ah iyo data link layer ba isagana hal xabba la iskaga dhigay markaas uu application-kii ka noqday transport-kii iyo internet-kii oo laba iyo saddex kala ah iyo network access-kii saas uu afarta layer ku noqday oo kanina toddobada ku yahay OSI. Okay, layer 4 bal waxay qabtaan baan bal layer 4 kan ka bilowna ama layerkii ma garanaysa ugu sareeyay marka application layer waa layer 4 hoos baan u soo baxaynaa hadii ilaahay yiraahdo layerkii ugu sareeyay layer 4 ka application layer is a topmost waa kan ugu sareeya oo afarta layer kan ugu sareeya weeyaan ee TCP/IP modelka. An application layer ku is present on the top dusha ayuu yahay on the transport layer ka waa kan ka sareeya weey macnaha way waa lagu sii faahfaahinayaa application layer identifies wuxuu cadeeyaa ama cadeeyaa oo ka shaqeeya TCP/IP application protocols wixii application protocolada application ka dhex shaqeeya iyo مثلا cadeeya ayuu مثلا cadeyn u yahay oo magaraysa u gudbiya protocolka kale oo hooseeya and how host programs interface iyo interface-ka programmada aad ku shaqeynaysid sidii ay ula shaqeyn lahaayeen with the transport layer ka labaad oo ah transport layer layerka saddexaad oo ah imika saddex buu galay layerka saddexaad oo ah transport layerka sidii ay magaraysa yani مثلا ugu gudbin lahaa inay isticmaalaan network okay marka waxa weeye layer 4 ku application layer loo yiri waxa uu magaranaysa haddaan yani idin soo kooban nigu soo celiyo waxa uu matala yani مثلا wuxuu hada jeer magaranaysa uu matala uu yahayba ama uu yaala in layer kan transport ka ayuu ka sareeyaa ee saddexaad shaqadiisuna waxay tahay in uu cadeeyo ama uu u geeyo application protocolada isaga ka dhex shaqeeya oo aan arki doonaaye and how host programs interface iyo programyada aad ku shaqeeyo magaraysa qofka uu ku shaqeynayo arkaayo sidii uu transport layer ka ula xiriirin lahaa magaraysa transport layer kuna uu ugu gudbin lahaa inay network isticmaalaan يعني مثلا واسيرو user ku data u diri lahaa muhiimadu waa inta uu ka shaqeeyo application layer ku wuxuu isku dubarida oo encryption iyo decryption iyo whatever decompress oo kala furfuraa iyo compress oo isku xidhiidhina iyo maaragtay ama zip iyo magaranaysa encryption kii oo datadii la qarinayo iyo decryption kii iyo telnet kii iyo file kii la doonayo file transfer protocol kii iyo waxa oo dhan waan hoostan ku arki doonaa hadii ilaahay yiraahdo ba ka dhex shaqeey buu u sahlayaa intuu waxa dhan isku ururiyo iyo transport ku gudbinaya si wixii
user ki data di au diraya oo transport ki oo wadadii ma garanaysaa u maro oo markaana de meesha loo diro waa kan application layer ka waxa ku jira oo ka dhex shaqeeya all high level protocols levelada yani protocolada oo yani midalan protocola sarsara oo dhan ama ma garanaysaa inta badan data qaada I mean inta badan yani midalan muhiimka ayaa ku jira sida DNS ko kale domain name system loo yaqaano HTTP ga oo loo yaqaano hypertext transfer protocol oo halkan ku qoran telnet ki FTP gi oo file transfer protocol TFTP ga trivial file transfer protocol oo isna kan okay iyo SNB oo symbol management symbol network management protocol waa kan isaguna iyo SMTP oo symbol mail transfer protocol iyo DHCP gi oo dynamic host configuration protocol iyo Access Windows ki iyo RDB oo isna remote desktop protocol iyo wax kale inta iyo wixii kale la mid ayaa ka dhex shaqeey inta oo protocol waxa ka dhex shaqeyn application marka muhiimadda halkan wixii laga lahaa waxay ahayd protocolan application ka dhex shaqeynayo bu application ko intuu isku soo ururiyo wuxuu u sahlayaa in transport ka keeno because application marka lagu leeyahay session kii oo wax kala googooynayay iyo presentation kii oo formatting iyo wax oo dhan sameynayay ama qaabaynta ama ma garanaysaa encryption kii saan hore u soo sheegnay wax oo dhan sameynayay encryption kii iyo compress kii iyo wixii oo dhan sameynayay ilan hal application u baahan kala isku inay u sahlaan transport kii shaqadii oo dhameystiran ay transport ka soo gudbiyaan shaqadii laga rabay oo ahaa inta oo protocol ka dhex shaqeynaysa kolba kii data u soo gudbiyo layer 3 oo isaguna transport iminka isku noqday wuxuu isagana shaqadiisu tahay waa third layer horta waa layerka saddexaad of the fourth layer ee afarta layer kamid oo TCP/IP modelka the position hadaba meesha ama qayb meesha uu ka joogo of transport layer is between application wuxuu u dhaxeeyaa marka application layerka iyo internet layerka ayuu u dhaxeeyaa ujeedada hadaba transportku au magaranaysa muhiim u yahay is to permit waa inuu u ogolaado devices computerka marka data soo dirayo on the source ee source-ga waa ka wax diraya and the destination host iyo kan loo dirayo oo destination host waa ka wax loo dirayo to carry on the conversation inuu sheekada u kala qaadayso sheekada muhiimadiisu waxay tahay inuu sheekada ka haya ka loo geynayo ka laga qaadayaba inuu sheeko kala waa balaton wixii loo dhijiray okay transport layer defines transport layer ku waxa uu shaqadeeya ama uu ku shaqeeyaa the level of service ka and status of the connection iyo inuu isku xiro to when transporting data markuu data u gudbinayo oo maaragtay ka qaado application ku ka soo guddoomaya marka kii ka hooseeyo oo magaranaysa layer 3 ga inuu u gudbiyo way shaqadiisu protocolada isagana ka dhex shaqeeya waxa ku jira transport layer ka waxa ku jira magaranaysa waa TCP oo la yiraahdo transport transmission control protocol iyo UDP labada horaan soo aragnay user datagram protocol oo labadii aan idin sheegay oo aan reliable ka ahaa oo TCP ga ahaa ninna magaranaysa iska ahaa ninkiiska loo saalay ahaa maaragtay aan reliable ka ahayn laakiin faster ka ahaa okay kaasina waa ka layer 2 waa isagu waa internet layer waa layerkii oo internetka ahaa weeyaan magaran ama network loo yaqaanay magaranaysa OSI model internet layer ku hadaba is a second layer waa layerka labaad marka of the four layer of TCP/IP model ahaa magaranaysa TCP/IP ga waa layerkiisa labaad marka the position kiisu ama qaybta uu ka shaqeeyaa oo qaatay of internet layer ku uu yahay is between the network access layer waa meesha uu hadaba degan yahay oo mesela uu yaalay transport ki iyo wuxuu u dhaxeeyaa network access ki ayuu u dhaxeeyaa okay internet layer back data and data packet known as a IP datagram wuxuu ba ka shaqeeyaa in uu dhoofiyo isaguna inuu qaado magarasa data loo yaqaan IP datagram marka any data uu isagu qaado IP datagram bal sababta IP datagram loogu yaqaanana waxa weeye marka uu source-gu ama computer soo diro data hadii jeer waxa la socda IP gi source-ga iyo MAC address-ki source-ka
oo MAC addresska kulley midba mid ku dabay laakiin muhiimadu IP addresski iyo ma aragtay waxa la socda IP addresska destinationka iyo IP addresski computerka wax soo diraya iyo IP addresska kanka oo ma arasay kani ha u socda IP addresskiisa ayaa ku jira sidaas loogu bixiyay data IP datagram which contains taasoo ku jirta a source-ga marka IP addresska source-ga and the destination address iyo destination address logical address or IP address waxa loo yaqaanaa logical address waa waxaan la taaban karin mar walba aragtida logical address lama taaban karo ma ogtahay laakiin physical hadii la yiraahdo waxa wala arkaa lama physical waxa ka soo horjeeda garasa physical waxa ka soo horjeeda logical ayaa ka soo horjeeda okay so marka waxa weeye layer kan hadaba ma garanaysaa in layer 2ga sorry network layer ko waxa uu ka mas'uul yahay in uu data ma daragtay oo qaado oo IP addresska iyo ma garanaysaa in IP addresska source-ga computerka wax diraya iyo computerka loo diraya information kiisa inuu qaado oo data oo ma garanaysaa geeyo inuu u geeyo ma garanaysaa destination hostigi kale oo la rabay inay gaadho ma garanaysaa sheekado ama data-dii loo dirayay across the network network ma garanaysaa oo ku gudbiyo network waxa maraya ma aragtay data qaada markuu data qaado datadan ma garanaysaa waa wadadii network internet layer-ku waa network-gii oo OSI model waa dariiqa wanaagsan ee saxda ah in data ku halaabin ama ku lumin ayuu marinaya marka waa inuu ma aragtay isagu baashi oo sifaysan oo kii ka hooseeyo u gudbiyo marka the internet layer is also responsible wuxuu mas'uul ka for routing waana ka hadlay hadda routingka of IP datagram inuu ma garanaysaa oo data qaado oo wadeeyo oo wadada mariyo marka packet switching يعني مثلا packet control inuu controlo packetka network depends on the connection internet isaga oo ku xidhan tahay network kale sida uu ugu xidhan yahay inuu data lumin oo qaado this layer kan isna waxa loo yaqaanaa internet layer waa sida aan sheegnay it is a key player waa magarta link pin kan waa key player inuu yahay that holds marka internet layer ku dhamaan wuxuu hayaaba design together please meel walba wuxuu og yahay networkan ma garanaysaa baathka ugu fiican oo computerka data u marin karo data u socdo marka taasi way shaqadiisu moogtay it is the job waa shaqadiisi waliba to allow hosts inuu hostiyada u ogolaado to insert packet in packetada ma garanaysaa ay geliyaan ama ay u diraan into any network kasta isaga u sahlaya inuu network kale ku xidho and have them to deliver independently to the destination ayna wax dhibaatooyada ka soo gaadhin aw toos ugu diro oo maaragtay data computerka laga diray oo best path baba lagu macnay hada jeer best path selection inuu yahay mesela wadada ugu fiican oo doorto oo kii kala dhibaato laan ku gaadho at the destination side buckets dhinaca hadba destinationka ama garasa meesha ay data u socoto may appear waxa laga yaabaa in a different order as they were sent inay data meel kale oo martay moogtahay meesha loo diray ma inay meel kale inay tagtay laakiin waa maxay layerada kale oo transportka iyo ma garanaysaa network access-ka iyadana shaqadooda tahay oo higher layerska to rearrange in dib ugu habeeyaan in order to deliver them in a proper network application yani userkii loo baahnaa inay data gaadho in loo diro the operating system at the application layer markaas waxa weeye ma garanaysaa waa saas weeye marka gabi ahaan network layer-ku sidii aan horeba u sheegnay waxa weeye waa wadadii ugu muhiimsanayd waa wadada fiican isaga u dooraya ama si data ayna u halaabin ama ay u lumin marka isaga ayaa network-kii kala the best path selection isaga u sameynaya marka waa route-kii ay data maraysay ay u kala gudbaysay weeyaan ma garanaysaa network layer-kuna actually waxba kama duwana de OSI layer-kii aan 7 layers kan ka soo hadalay tii u baahan kana marayna aan ka hadlayna moogtay wax u kala duwan oo jira ma jiraan marka laga reebo 4 layer oo kalina yahay 7 layer oo kii horena aha marka laga reebo wax kale oo ma garanaysaa wax kasta waxa ku macnaynaa siday markii hore ahaayeen okay layer 1 oo network access layer oo halkan laba ka kooban data link-gii iyo physical layer-kii ka kooban baan isagana ka hadlaynaa oo halkan hal layer la isku keenay network access layer
network access layer kan is the first layer waa layerka ugu horeeya of our 4 TCP IP model yani TCP IP model ka waa oo yani waa halka waa layerka ugu horeeya network access layer ku identifies wuxuu ku shaqeysaguna cadeeyaa the details of how data is physically sent through our network isaguna wuxuu ka shaqeeyaa si datadan loogu diri lahaa ay wireka u mari lahayd including isaga oo ku jirto how bits are electrically or optically signaled by the hardware devices that interface directly within the network medium macnaheedu waxa weeye waxa mas'uuliyadiisu tahay in uu datadan oo bucketka ah oo u bedelo magarasa electronically ahaan inuu magarasa oo ku bedelo datadii 1kii iyo 0gii intuu ku bedelo ay wireka oo magarasa oo wirekana ku xiriiriyo sidii wireku u qaaday datada oo u qaado مثلا او sidii wireku datada u qaadi lahaa inuu falankeeda ka shaqeeyo moogtahay marka kuwaas oo directly kaas wireka oo directly ugu xidhan magarasa network medium such as coaxial cable ka xariga la yiraahdo optical fiber ka ama fiber optic ga or twisted pair coveride iyo twisted pair coveride haddaan kan ku yar noqono waxoogaa network layer ku imka halkan laba layer baa lagu soo koobay sidaan hore baan u sheegnay waa fi layer 1 iyo layer 2 iyo layer 1 la iskaga dhigay oo midna data link ahaa midna kan ahaa ma garanaysaa layer 1 caadi marka ujeedada meesha laga wada waxa weeye wuxuu mas'uul ka yahay datadii layer 3 ka timid ee routing ka ahayd oo wadadii fiicneed oo loo dooray socota intuu qabto datadii oo ku bedelaba bits 1 iyo 1 iyo 0gii datadii ahayd oo ku bedelo oo electronically ilan waxaan datada markay maraysa waa electrical ahaan ayay ku martaa moogtahay koronto ahaan oo yani mesela noocii yani electrical ahaan oo kale ayay ku martaa markay ku marto inuu isku soo mariyo oo ku qaada inuu yani electrically ahaan oo ku bedelo datadii 1 iyo 2 ga ahayd iyadoo 1 iyo 2 ah iyo electrically ahaan ay ku soo maraysa xariga marsa wireka ku xidhan marka wirekan sida ay u dhaxmari lahayd waxa ka shaqeynayaba network access layer kan oo ama ma garanaysaa layer 1 ka ayaa ka shaqeynaya marka xarkaha loo gudbinayana waxa kamid ah waxay noqon karaan coaxial cable waxay noqon karaan optical fiber optic waxay noqon karaan twisted pair cover twisted pair kana waa 5 category waad garanaysaa iyagu waa 5e ya 5 category kuwi the protocols included in the network access layer are Ethernet يعني waxa ku jira protocolada ma garanaysaa ka dhex shaqeeya in access layer waa Ethernet token ring ma FDD X.25 iyo frame relay iyo wixii la mid ah haddaba ka ugu wanaagsan baa lagu leeyahay in network access layer ka Ethernet waa Ethernet ka weeyaan Ethernet waa kan aan isticmaalo actually ma garanaysaa in aan isticmaalo weeyaan token ring Ethernet waa kan hadda aan isticmaalo weey Ethernet wuxuu isticmaalaa access method la yiraahdo CSMA CD oo loo yaqaano carrier sensing multi access / collision detection waa tan halka ku qorata macnaheedu waxa weeye waxa ku shaqeeya ma garanaysaa technology ama method kan waxa ku shaqeeya habka waxyaalaha aw switch kaga liito ayay kamid tahay in uu wandigan doona hadii la yiraahdo inuu collision detection leeyahay ama CSMA ka ama garanaysaa intan oo carrier sensing multi access ma garanaysaa / collision detection macnihiisu waxa uu half duplicate waxa weeye hal computer oo kamid ah hadii uu data diro inta kale weynay wada sugtaan walaba hal mar ma wada diri karaan sida switch kale switch waxyaalaha kaga fiican yahay hal mar marka ma wada diri karaan marka waa in hadii hal nagara computer oo hab ku xiran ay data dirto waa inuu sugo sida halkan ba ku cad ina CSMA or CD magarasa access method ku every host kasta has equal access to a medium wuxuu leeyahay magarasa equal access yani access yani مثلا waxa leeyahay iskugu wada mid marka aan yani مثلا computerku yani مثلا waa u wada dhex marka macnihiisu waxa weeyaan midba wixiisa ka mas'uul ma aha sida habka ee waa u wada dhex waxa weeyaan hadii uu mid computerka ka mid yahay aw data aw diro مثلا wireka data dhigo
when a wire is free wire is free يعني مثلا او من transmission سمينينو كمبيوترada mid kamid ah او na transmission او سمينينو direynin from a network traffic or network traffic aan jirin when a host wants marka hadaba uu rabo computer inuu data dhigo ama data au diro it will check wuxuu oo jeegareynaya oo tan u saamaxaysa marka inuu jeegareynaya okay uu jeegareynaya to find inuu helo whether another host is already using the medium inuu the computer kale data diray hadii uu computer kale data diray if there is a traffic already hadii traffic jirto in the medium magarasa network the host will wait will sugi computer kay uu sugi data ma diray if there is no traffic hadii data dirin hadii waxa traffic oo data ay jirin it will place the data in the medium wuxuu dhigid uu diraya data ayuu diray laakiin ba meesha ku jirta but if system is place data if two systems ama laba computer place data hadii data wada diraan on a medium on the same distance hal mar hadii data wada diraan there will collide waxa dhici doona wax la yiraahdo collide ama collision ayaa dhici doona with each other labada so destroying data dio burburaysa if the data is destroyed the data burburta during transmission ka marka ay data la diray hadii laba data isku hor yimaadaan laba baabuur isku dhacdo kale data burburto magarasa hadana weynay dib u diraan oo dibti dib loo socdo need to be retransmitted when dib loo after collision hadaba markuu collision ku dhaco kadib each host kastaba will wait wuxuu sugi magarasa for interval of time waqti yar oo cayiman buu sugi and again the data will be retransmitted data dib ayaa loo diri doonaa in this lesson ashirkana you have learned waxaad ku barateen about 4 layers of TCP/IP 4 layers of TCP/IP gaad ku barateen modelka comparison yes barbardhigi 4 layers of TCP/IP ga and 7 layers and halka hadii aan ku yar noqdo layer access layer kama layer 1 ka macnihiisu waxa weeye isagu wuxuu ka shaqeeyaa inuu datadii aw maaragtay u bedelo datadii aw intuu isku soo habeeyo because datadii habaysan waa loo keenay oo dhameystiran isagu inuu datada intuu bedelo bits oo 1 iyo 0 gii ay ku bixi jirtay aw ku bedelo oo markaana wire ka dhigo wire-ka markuu dhigana electrically bay ku baxaysaa marka wire-kii kale maraysa si sawirkan ku saaranay OSI modelka halkii kale ka gudbaysa sidii bay u maraysa waxaana idin sheegaya computer halka yaala iyo computer laba computer oo midna halka yaala laba computer oo yaan laba iskarab yaala oo network u dhax for example laba computer oo laba meelood oo laba what they call like laba xafiis kale yaala hadii ay data rabaan isku diraan mid kasta wuxuu sameeyaa todobada layer aan sheegnay ama afarta layer aan sheegnay oo todobadii bay actually ka wada kooban yihiin todobada layer ee OSI modelka ayuu wada maraya todobada layer buu wada maraya marka saas bayna ku dhantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh